أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحين بلابينا كتاب فقه أو كوبان سي كوبان وحوي وين وآخرين إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى وحن ويديسيننا سيدان أبرونين ودماينو كتاب كان مقعس أو كامل كاوح ليلة هذا سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه على مذهب إمام الشافعي رضي الله عنه كتاب كان وحا قري من شيخة أو ليلة هذا الشيخ سالم بن سمير بن سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي الشافعي نكاسا إسكاله كتابك مؤلفكو شيخ ساقري شيخ وحا لقب كيسا كمذا المعلم باللو يقاناه وحوها شيخ نشار يمنه ميشا يمن حضرموت بكل شيء halkaasuu cilmiga ku bartay aabihiis baa sheekh ahaa oo cilmiga baray oo quraanka u bilaabay markuu quraanka bartayna meeshii yamantii buu ka noqday mashhuur caan ka noqday wuxuuna caan ku noqday inuu dadka quraanka baro saasa waxa loogu bixiyay macallin baa loogu bixiyay oo laqabkiisa kamid oo dad badan ay u yaqaaniin kunyadiisana Abu Abdullah baa la yiraahdaa sheekhu meeshu ku dhashay waa Hadramuut oo Yaman ah wuxuu halkaasuu cilmiga ka qaatay culimadii joogtay iyo aabihiisa waxa weeye halkaas cilmiga ku baray iyo culimadii kale ka agdhoweyd markii dambena sheekhu dhanka kalena siyaasi buu ahaa siyaasadana uu ku jiray waagi dambena wuxuu u rixlaystay oo aaday waxa weeye Indonesia buu aaday halkaasuu sheekhu waxa weeye ku geeriyooday taariikhdiisii waxa weeye dhashay si waxa weeye xadidan looma hayo laakiin xilligu geeriyooday baa la hayaa oo wuxuu geeriyooday 1271 oo hijriyada ayuu waxa uu sheekhu geeriyooday oo waxay waafaqsan tahay 1855 miilaadiga xilligaas ayuu sheekhu taqriiban waxa weeye uu geeriyooday waxa aad loogu aqoonaa waxa weeye macallimkaasna wuxuu kula baxay dadka quraanka bari jiray marka macallimka asalkiisiiba halkaas uu ka yimi oo khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu xadiiskaasiiba ka soo qaateeno macallimkana waxa loo yaqaan qofka dadka quraanka bara ay waagi hore aqoon jiray laakiin istilaaxa hadda loo yaqaan waa qof kasto dadka wax bara wuxuu doona ha bare ayaa macallim la yiraahdaa sheekha taariikhdiisa intaas hadaynu kaga gaabsano waxaan guda gelaynaa kitaabkii sheekhu wuxuu halka ka bilaabaya kitaabkii uu ka bilaabay bismillaah abdo waxaan ku bilaabayaa kitaabkan bismillaah magaca ilaahay mustaciinan xaalanahay mid kaalmaysanaya Allaah Raxmaan naxariista guud naxariista uunkiisa naxariista gaal iyo muslim الرحيم naxariista gaar ahaaneed naxariista dadka muuminiinta maalinka qiyaame wa kana bil mu'miniina rahiima alxamdu mahadu iska dhan ilaahay bay u sugnaatay rabbil caalamiin caalamiinta rabbigood wabihi isagaan nastaciinu kaalmo weydiisanayna cala umuri dunya arrimaha adduunyada iyo wadiini arrimaha waxa weydiintaba isagaan u kaalmo weydiisanayna sallallahu allah naxariisto wa sallama nabadgeliyo cala sayyidina sayyidkeeni muhammadin muhammadaha khaatimin nabiyina nabiyada midkii lagu soo khatimay ahaa wa aalihi ehelkiisina ilaahay nabadgeliyo oo ilaahay ha u naxariisto iyo saxaabadiisa ajmaciina dhamaantood iyagana naxariis iyo nabadgeliyo korkooda ha ahaato wala xawla xeeladi ma jirto ama wala xawla xeelad ma lihin iyo wala quwwata awood illa billahi ilaahay mooyee allaha al-caliy sareeyay al-cadiim uunkiisa ka weynaa halka sheekhu wuxuu kaga hadlay muqaddimadii bisanku ku bilaabay oo bisanka waxa weeye waa da'biga culimada weeye oo qofkii wax alifaya kitaab alifaya bisanku ku bilaaba nabigana sallallahu alayhi wasallam ku bilaabi jiray haduu warqad qorayo bisanku ku bilaabi jiray sidoo kale iqtidaa li kitaabillahi baa loo oran karaa kitaabka ilaahay isagoo lagu dayanayo maxaa yeelay suuradii ma jiro ilaa bismi ku bilaamataa si waa suuratul baraa marka ilaahay buu ku xamdiyay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu ku xamdiyay kadibna wuxuu u duceeyay waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala gargaar weydiistay wuxuu u duceeyay nabigii saxaabadii iyo waxa weeye halkaasuu wuxuu ku soo khatimay ducadii kadibna wuxuu ku soo khatimayneen awood xoog iyo xeelad jirin ilaa ilaahay subhanahu wa ta'ala
maaha oo wixii ilaahay awood kuu siiyo baad qaban kardhaa. waaya faslun arkaanul islaami islaamka arkaantiisu 5 wey. shahaadatu waa qiritaan la qiro an laa ilaaha alla xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu ilaahay mooye wa anna muxammadan nebi muxammadna rasuulullaahi rasuulka ilaahay inuu yahay wa iqaamu salaati salaada in la oogo wa iitaa'u zakaati iyo sakada in la bixiyo wa sawmu ramadaana bisha ramadaan in la soomo wa xajul beyti beytka in loo xajo man istadaaca ruuxii awooday ilayhi beytka xaggiisa sabiilan wada ahaan. halkan arkaantii islaamka ka galayo waa 5 macruuf waa la yaqaanaa. nabiga sallallahu alayhi wasallam buniya al-islaamu calaa 5 islaamka waxa lagu asaaso lagu dhisay 5 baa lagu dhisay. 5taasuu nabigu tiriyay salawaatu rabbi wa salaamu calayhi. arkaanul faslun halkan wuxuu kaga hadlayaa wuxuu fasal u yahay arkaantii waxa weeye iimaanka. arkaanul iimaani 6 weeye an tu'mina waa inaan rumayso billaahi alleh. alimaanu billah baa ugu horeeya waa in ilaahay la rumeeyo oo loo rumeeyo alle keligiis inuu jiro, sifaadkiisii iyo waxa weeye asmaadiisii iyo waxa weeye inuu saas in loo rumeeyo. waaya wa malaa'ikatihi malaa'iktiisii in la rumeeyo inay makhluuq ilaahay abuuray ay yihiin oo nuur laga abuuray, wa kutubihi kutubtii ilaahay soo dejiyey in la rumeeyo, iyo wa rusulihi iyo rusushii alle uu soo diray. wa bilyawmi alaakhiri waan tu'mina waa in la rumeeyo bilyawmi alaakhiri maalinka dambe waa maalinka qiyaame. wa bilqadari waan tu'mina waa in la rumeeyo bilqadari qadarka khayrihi kiisa khayrka iyo wa sharrihi kiisa sharkaaba min allahi tacaala ilaahay xaggiisa inay ka ahaadeen. halkan wuxuu kaga hadlayaa iimaanka waxa weeye arkaantii iimaanka buu kaga hadlayaayo waa 6. inaad ilaahay rumaysid iyo malaa'igtiisa iyo kutubtiisa iyo rususha uu soo dirsaday iyo maalinka dambe qiyaamaha iyo qadarka kiisa sharka iyo kiisa waxa weeye khayrkaaba inaad rumayso. intaasaa lagaa doonayaa. haddii intaa in ka mida rugni ka mida lagaa waayo waxa weeye waa iimaankaagu hadda ma saxno. rugniguna arkaantuna waa waxay ku taagan yahay shaygu tiirka uu ku taagan yahay weeye. haddii rugni ka mida lagaa waayo islaamnimatiid bay ka dhigan tahay. haddaad ambiyadii nebi ka mida aad beenaysid waxa weeye islaamnimada sax noqon mayso. jamiicu rusul waa la rumaynayaa, maalinka dambena waa la rumaynayaa. inuu maalinka dambe qofku rumaysan yahay waxa lagu gartaa qaabku ugu shaqaysanayo dunyada markuu joogo. faslun waa macnaa laa ilaaha ila allah. halka wuxuu ka gelayaa kelimatu tawxiid ayuu macnaheeda ayuu fasal u yahay. waa macnaa laa ilaaha ila allahu macnaheedu uu ku barino laa macbuuda bixaqin bilxaq alle xaq lagu caabudaa ma jiro fi lwujuudi koonka ila allahu ilaahay mooye. waxa weeye alle xaq lagu caabudo ma jiro ilaahay subxaanahu watacaala maahe. koonkan cid kale xaq laguma caabudo. cidda la caabudo oo la tuugo oo la baryo la tala saarsado waa allah subxaanahu watacaala. waaya kitaabu dahaarati halkaas muqadimadii buu sheekhu kaga soo baxayo. kitaabku wuxuu ka kooban yahay usuul ayuu sheekhu horey ka geliyay qofka muslimka ay tahay laabudda ay tahay inaan waxa weeye inuu barto ay laga maarmaan tahay. هذا الفاصل فيما مضى وما سيأتي أي فصل هي علامة البلوغ. علامتها قانقارك 3 وي. تمام 15 سنة inuu qofkii gaaro 15 sano fi dhikri labki wal untha dhadigii waa calaamada koowaad oo lagu astaanka koowaad oo ku tusinaya inuu qofkani qaangaar yahay waa inuu 15 sano gaaro. wal ihtilaam waa inuu qofka ihtilaamo oo biyo ka yimaadaan fi dhikri labki wal untha dhadigii la 9 siniina 9 sano inay biyo kaga yimaadaaniin. wal haydu baa la mida inay haydo fil untha haweenaydii inay dhigi caadada hesho 9 siniina 9 sano iyadoo jidhay. halkan wuxuu kaga hadlayaa astaamaha lagu garanayo qofku inuu qaangaar yahay waa 3. qofku inuu 15 sano gaaro. mardu 15 sano gaaro qofkaasi qof qaangaar waaya. waxa kale oo calaamada labaad ay tahay qofkii isagoo aan 15 gaarin buu qaangaari karaayo hadduu biyo helo. qofkii biyaha ka yimi ihtilaamku waa riyadii uu riyoodi. marka wayda balaqa al-atfalu minkum al-huluma فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. بالله سبحانه وتعالى يريو حدي عرورتي غارانين حدي قان غاران waxa way haydin idin weydiisan sidii ku waaweynaa oo qaangaarka ah idin weydiisanayeen waa fi dukhul al-buyut. marka ihtilaamki hadii qofkii waxa way biyo ka yimaadaan rag iyo dumar ku doono ha ahaade 9 sano isagoo jirayna waa qaangaar qofkaasi waaya.
haweeneyda haddii xaydo iyadoo 9 sano jidhay gabadhiba dhiigga caadada ay isku aragtay iyaduna waa qaangaar marka dii axkaamtiiba halkaa uga ratimaysa faslun halkana wuxuu fasal u yahay wuxuu kala saaraya wixii noo soo socday waxaan iminka gelayno shuruudu ijzaa'il xajari 8 shuruuda ay ku gudayso dhagax in lagu waxa weeye istijeysto in dhagax lagu istijeysto shuruuda ay ku gudayso waa 8 kow an yakuna waa inuu yahay dhagaxaasi bi 3 axjaarin 3 dhagax waa inay yihiin waa yunqiya waa inay tirayaan al maxalla booski waa inay shaygi mulawaska wasaqda waa inay ka tirayaan waa in la yajifa waa inaysan qalalin an-najasu najasadu waa la yantaqila waa inaysan najasadu guurguuruna wala yadra'a waa inuusan ku dhicin calayhi najasada waxa uu calayhi korkiisa waa inuusan ku dhicin ajnabiyun aakhara mid kale oo ajnabi ah shay kale oo waxa weeye mustaqil ka ah aan kamid ahayn waa inuusan ku dhicin waa in la yujaawiza waa inuusan dhaafin safxadiisa xagga dame weeye waa baridiisii ama safxatayhi labadiisa bariyood iyo xashafatahu xuminka taranka xagiisa hore waa in la yusiibahu waa inaysan aseebin maa biyo oo haddii adigoo dhagax ku dahaaro qaadanay biyo yaray ku aseebaanin dhagaxaas waxba ma qabanayo waana biyo ku dahaaro qaadatin waan takuna waa inay tahay alaxjaaru dhagxaantuna daahiratan kuwa daahira waa inay yihiin waaye halka wuxuu sheekhu ka gelayaa oo daabidina ka siinaya maadaama dahaaradii lagu jiro oo aad qaangaartay mar haddaa qaangaadhay maxaa lagaa rabaa cibaadaad baa lagaa rabaa cibaadaadkina dahaaray u baahan yihiin shardigu waxa weeye 3 masaxadood 3 jeer waa inaad masaxdid dhagax 3 gees leh haday aad ku istijeysato oo hadba gees aad ku istijeysato hadda meesha qabsan lahaydna way ku jirtaa waa inuu 4 gees leeyahay 3 gees hadaad isticmaasho waxa weeye way ka gudaysaa waaye waa inaad booskii ay ka tirayaaniin wasaqdi shaygi malawadka ahaa halkii waa inay ka tirayaan oo daahirinayaan najaasada waa inaysan qalalnayn oo najaaso qalalan dhagax ma daahiriye biyo u baahan tahay waa inaysan najaasada guurguurayno maxaa laga wadaa xagga dama wax ka soo baxeeno adoo xagga dame waxba ka soo fininayo ama bowdada ka gaaray ama meel kale ka gaaray dhagax kuma daahirin ka dhide biyo u baahan yihiin waa in najaasada guurguurino meel kale ay saadeen halkay ka soo baxeen ba ruqso waaysta maxaa yeelay dhagaxu waa ruqso lagu siiyay ruqsaduna intaasay gaar ku tahay waa inaan shay kale ku dhicin oo najaaso kale meel kale ka timi waa inaysan najaasadii ku dhicin oo haddii najaaso kale meel kale kaga soo dhacdo oo aan iyada ka mid ahayn dee waxa weeye markaas iyadana kama ansaxayso waa inaysan dhaafin najaasadu barida iyo xagga hore xumanka labada meelood wax ka soo baxay najaasadu waa inaysan dhaafin oo halka booskaas uu dhagaxu khaas ku yahay laakiin haddii bowdada iyo meelo kale iyo ay ka gaarto ama ma daahirinayo dhagaxi biyana waa inaysan aseeban biyo yar haddii ay ku aseebaan oo waxa weeye wixii ku ka kicinaysa dhagaxu markaa ma daahirin karayo dhagaxaantaasna waa inay daahir yihiin haddii dhagaxaantu najaaso tahay haddii najaaso laguma daahiriyo marka dhagaxaantiina waa inay daahir yihiin waaye والله سبحانه وتعالى أعلم وأعلى هل كان سوف يجيني